maamulka iyo shaqaalaha dowladda hoose xamar iyo gobolka banaadir oo runtii in muddo ahba ka shaqaynayay sidii maanta loo soo gaari lahaa. maanta saa ujeedaan waxaa halkan nala jooga khubaro ka socda hay-ado kala duwan iyo injineero iyo khubaro soomaaliyeed dowladda hoosena ka shaqeeya iyo khubaro kale oo soomaaliyeed ayagana aan ugu yeerin arrimahan. ujeeddada maanta waxay tahay si xal loogu helo arrimaha saameynta roobabka ay ku yeeshaan magaalada muqdisho, loo heli lahaa bulaacadihii jidadkao dhan noqon lahaayeen jidad aan biyahana fariisanin, si muxuu ahaa magaaladan u noqoto magaalo caasimad la tartami karta caasimadaha adduunka. waxaan ka shaqaynaynay 3 bilood lasoo dhaafay sidii lagu heli lahaa in daraasad dhab ah lagu sameeyo in magaaladan xal waara looga helo arrimahaas. waa la socotaan aragtida maamulka gobolka banaadir waxay tahay caasimadda inay noqoto caasimad nadiif ah, caasimad amni ah, caasimad la jaan qaadi karta la tartami karta caasimadaha adduunka. si taas lagu helo waxaan u guntanay waxyaalaha caqabadaha waaweyn oo ay ka mid tahay caqabadahan roobabku markay da-aan iyo magaalada saameynta ku yeeshaan. waxaan aada ugu faraxsannahay in bangiga adduunka oo runtii naga aqbalay inuu arrimahan nagala shaqeeyo, annagana aan diyaar u nahay sidii aan marka khubaradan waxay u yimaadeen oo ka socda Unipos iyo IBE Global iyo khubaro kale Soomaaliyeedba in qiimeyn dhab ah lagu sameeyo dhammaan wadooyinka isku xirkoodii iyo bulaacadihii meelihii lahaan jirtay iyo meelaha u baahan in bulaacado loo sameeyo. qiimeyntaas markay dhammaato waxaan helaynaa daraasadii ugu dambeysay oo magaaladan loogu sameynayo master plan wax la dhaho oo ay caasimadaha adduunka kula tartami karto. tani waa middan waa shacabka. waxaan u taaganahay waxay tahay maamulku inuu noqdo maamulkii shacabka. sababta keentay inaan geed dheer iyo geed gaaban u fulnana waxay ahayd in la helo qiimeyntan dhabta ah. shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa marka khubaradan intay joogto in si fiican loola shaqeeyo, ayagana waxaan ka codsanaynaa inay waqtigana ka faa'iidaystaan, soo dedejiyaan qiimeyntooda, kadibna qiimeyntaas oo dhammaystiran bulshadan usoo bandhigi doono habka ay magaaladan noqon doonto, iyadoo weliba maaragtay ama video ah ama qoraal ah intaba. laakiin waxaad ogaanaysaan maamulka gobolka inuu u istaagay xal waara sidii loogu heli lahaa arrimahan. waqtigay qaadanaysaa daraasadda markay dhammaato kadib haddana waxaan rajaynaynaa shirkadihii dhisi lahaa sidii lagu heli lahaa. laakiin waxaan rajaynaynaa muddo 1-2 sano gudahoodaba in magaaladan ay xal waara loo helo. taasna waa mid shacabka oo dhan aan ka rabna inay nala soo dhaweeyaan, ayagana kaalintooda ka qaataan. intaas ka sokow dhibaatooyinka ay roobabka oo aada muhiim noogu ah haddana saameynta nagu yeeshaan oo la socotaan. dad baa ku dhiman jiray, guryo badan baa biyo geli jiray, jidadkii baa kala go-i jiray. dhaqaalaha maamulka gobolka banaadir uu ku bixiyey hadda bishii lasoo dhaafay waa mid runtii culeysna ku ah maamulka gobolka iyo shacabka gobolka. sidoo kale dhaqaalaha oo ganacsatadii iyo soomaalidii isu socodkooda uu saameyn weyn isagana ku yeeshay daraasadan oga socoto. waxaasoo dhan mid runtii loo u baahan waa inaan xal waara u wada helno. shacabka anagoo kaashanayno waxaan rajaynaynaa xalkaas waara in aan wada heli doono. bahda saxaafaddana aad iyo aad kaga mahad celinaa. barnaamijkana waa noo sii socon doonaa. waxaa jiri doono presentationno, aniga shir deg deg aan aadaa. waxaa sii wadi doono gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda xuseen maxamed nuur. waxyar presentation haddaa idinla sii daawanayno waa soo dhawaada. waa mahadsantihiin.